بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دواد أم زبير سلمان channel. هدا يقول عصب تاي سبسكرايب جنبال الكنفورة أصحابي سو دوادا ما انتحانو ودا بسكيتو دنان أهان كده يا أباي شيكاد كودا إن شاء الله سيدان سمي أصحابي إلى أركا ماشا وحاكو يستا نسكيلو أو هيلب استيك واي sidoo kale waxaa ku haystaa cusbo xawaaji sanjabiil tuun filfil iyo maxaa la dhahaa saliid sidoo kale waxaan ku haystaa soy sauce insha Allah intaasaan ku wada daraa hilibka إن شاء الله خير أصحابي. هذا نحن كسودر سنجويل خليل كإيه يعني كان فجقة إيه ولا كيس واي أسيقول خالجي كي قحوة اللي قدر سجير واي إن شاء الله سيدو كلا waxaa kusoo dari doonaa waxyaabihii kale hadaa hore oo sheegay intaasaa marka la isku qasaa si fiican aad isku qasaysaa marka isku qasto waxaa la rabaa inay isdhexgalaan oo waqti oo yaalo ugu yaraan 10 daqiiqo camal 10 daqiiqo marka uu yaalo hilibkii oo iska mushulaata iska ahaayo oo يعني إتابة لي هاي أسيجيو عرفتي وحي أكو دكتي ما شاء الله هدو موك دواي عنتون كيسة ويا بسان كده إيه أباي وشي كذا كودها إن شاء الله خير. هذا نسوي الصوص كي أكو صدرا هدي أربط وأكو خصان كرتا هدي أتربطنا مركا كريسي أو كرينيسيد محالة وأكو درسان كرتا إن شاء الله ساسول الصعدة سودوا هذا هي اوكي. هذا الدعوة يا دبكسو صارتي ساوجيدين وحير سليد او ببين اكسو شوا سليد بدن مكدواي سيمبر waxaa jecla yani saliid yar inaa wax ku sameeyo labada marba way fiican tahay dhinaca dhaqaalahana way fiican tahay dhinaca nafsi ahaan way fiican tahay haday kugu soo gadoonto adiga waxaa galaysaa dhibaa galaysaa oo kuleelkeeda hadhow dhibaato ku geysanaa sidoo kale haddii aad iska badisana dhibaatay ku keenaysaa insha Allah khayr. hada hilibkii aan kusoo shuwa taawada saa u jeedinba hilib sideeda markii dab oo galo wuxuu noqonaa wax yar oo noqonaa haddana markii kor ahaan laga arkaayo markii qasaay camal wax yar camal hilib oo noqonaa laakiin qiyaas ahaantiisa hilibka halahaas waaye insha Allah khayr. soo dhawaada asxaabe marka uu horeyso hilibkiina soo karina kabacdi aan wixii ku soo daray gadaal ugu soo dara si oo naqdan ku dhahay dhanaan aan caadi ahayn iyo abo sheekada kowdaha insha Allah khayr. Soomaali weyn soo dhawaada meel walba joogtiin waa Musubiir Salmaan. haddii aad igu cusub tihiin subscribe ka dhac igu siiya like tabac igu siiya commentigana joog sheertana shab insha Allah khayr. waxba iga faa'iido doontaa haba yaraatee mar walba waxaa fiican qofka walaalkiin la dhiirigeliyo. haddana waa ujeedin hilibka wuxuu dhali biyo yani markii la daboolo sember hilibka wuxuu noqonaa waa hurista huriskaas wuxuu dhalaa biyo biyahaasa marka u horeyso lagu qalajinaa oo yani biyo dhan ma loo dhaweynayo waayo waxaa la dhahaa hilibkan hilib farfara la dhahaa buskeeti walaalkiis waaye insha Allah khayr. haddii aad rabtana buskeeti waa dhihin kartaa laakiin magaciisa waa hilib faar.
okay haddaba ujeediin waxaa kusoo daray yaanyo waaye iyo basal xoogo kaamirada ka dheer asxaabay sorry laakiin waa afkaanaan iga sheegi doonaa waxaan kusoo daray yaanyo waaye iyo basalaa kusoo daray marka waxaa rabaa dane inay isku huuraan oo yaanyadii waxaa iyada naftirkeedii dhalaysaa biyo ama dhacaankaasiitiya marka u horeyso iidana lagu jijibinaa waxaa loo baahan yahay inuu naqdo yacni wax zaa'id dhalan u leh asxaabta walaaca iyo dadka xanuunsan iyo dadka fiican dhammaantoodaba hilibkan aad ugu fiican yahay waayo macaan dhanaan waa yaabaysaa aan ku dhahay caadi ma ahanaan dhahay kow dhaha insha allaha khayr soo dhawaada mar kale okay hadda waa kan yaanyada waa soo jijibi haddana wax yar waa isku huuraa kabacdi saasayba diyaar ku naqatay maasha allah waa kan hilibkeenii macaanka badnaay dhanaanka aay quruxda badnaay bariiskana ku cununa asxaabe dhinacaas kalena waxaan kasoo saaray salaato yaraan kasoo saaray intana bariis wax yaraan kusoo shubtay waa yaabaysan aan ku dhahay soo dhawaada asxaabe meel walbaad joogtiin mar walbana waa ni soo niyeystaa asxaab badan ay dhaheen subeer hee iyo abba intaa ku jirta dhudhunjino saaye see camal waaye insha allah asxaabteeda mar walba waan isoo niyeystaa haddana waxaan leeyahay soo dhawaada mar kale insha allah sameysta waa shaqo aad u fudun cunto macaan badan aan ku dhahay ana caadi ahayn aan ku dhahay sakhiir iyo kabiir bay ku duceynayaan haddii aad u kariso afaarahan oo kale haddii aad ka heshana ii sheergaray asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bilaahi towfiiq waxtarka ay leedahay saliidan aad u jeediin maryan natural qaybteeda bidaarta ama madoweysta ama hee iyo abbay waa sheekada kow dhahe dad badan aan ku dhahaya waxaan ku dhahay hee madow maa la sheegooya aldhahooyaan ku dhahay magaalada dhan insha allaha khayr saliidan waxay waxtar u leedahay kow dadka qaba bidaarta ma ahan dadka oo bidaarta yacni timaha dhan shimeenta ka naqdeen waxaan ka wadaa dadka waxyar il hataa u furneenoo madaxa dhan liisha ka naqday dadkaas timo ma usoo baxayaan laakiin dadka timaha ka haadayan ilaayo 10 xabo oo xaad hadday ku taalo timaha waa soo bixinaya saliidan marka u horeyso runta wax ka fiican ma jirto been wax la dhahayn subeer ha ugu imaanin tan labaad ee u fiican tahay waa dadka cirada qabo markii la arki baahida dadka isticmaala madoobeysada sidoo kale dadka madoobeysada cilaanka isku dara laakiin markii bidaarta ay kuugu bilaabanayso haddii aad ka hortagto aad isticmaasho maryan natural oli qaybtan hadda aan xayeysiinayo wallaahi aan ku dhaartay wallaahi wax ka weyn ma jirto lagu dhaaranaye 90% ma ku dhahay 100% waa ka faa'iideysaa waayo saliidan waa la huwaa 100% waana saliid la soo tijaabiyey waxyaabaha oo la xayeysiinayo markaa maqashid waxaan saan waay kida waay laakiin qofkaas ma dhaaranayo laakiin ani shakhsi ahaanteyda waxaan xayeysiinayo waxaan dhaaranayo waayo sawirkaan ujeediin qofka timihiisa saan markuu noqdo waxaa ku bilaabanayso bidaarta garoonka waxa waaye bidaarta oo yacni oo kor ilaa iyo hoos timaha bes waay kaaseeti waaba u dhammaad qofkaas garoon diyaaro inay kusoo degta lala sugooyaa waayo laamigii waaba jijaween oo waxaa soo baxay bacadkii yacni timihii dhan waaba dhammaadeen